السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalkiin Cimraan Alhaadi oo maan doonayo inuu cashar yar nii faa'iideeyo. Dadweynaha Soomaaliya ku nool aan marar badan aan arkay sim kaarkooda BUK ku xirmay. Marka BUK gaas markuu ku xirmo waxay la cararayaan inay aadaan shirkadda Hormuud inay la cararaan dhahaan alla laftiya waxay u xiran BUK cunugiya igu falaaday wuxuu igu xiray password hadda ma aqaan sida loo furo. Shirkaddu waa ogtihiin safaa la galaa way buuq badan tahay. Marka adoo gurigaaga joogo shaqadaada joogo aad xalin kartaa. Sideed ku xalin kartaa marka? Waa way fudud BUK gaas aad taleefankaaga aad ugu furan karto. Waa sidee? Qof guriga joogo wiilkaaga ahaado, gabadhaada ha noqoto, ninkaaga ha noqdo, xaaskaaga ha noqoto, midkoodiya taleefankiisa ka qaadanaysa oo lafta Hormuud ugu jiro. Kadib wayga aniga hadda aan marayo aad maraysa markaad martid kadib BUK gaaga oo kaaga xirmay laftaada aad ugu furan kartid. Waa sidee? Fiiri hadda cashar ahaan u qaadanayna hadduu Ilaahay kala noqdo. Waxaad leedahay marka hore xidig 142 xidig waa mobile kale aad soo qaadanaysa sidan waygan ugu maraysa oo hadda aniga aad iga jeedaan xidig 142 afar gees xidig maana afar gees way. Okay aad leedahay. Fiiri hadda itusi haraagaaga postpaid maariyeenta BUK ma jeedido 4 aad leedahay marka afar macnaa send ayaa dhehaysaa. Taleefanka BUK ga ku xiran numberkiisa halkan gelinaysa. Tusaalaha numberkaygan gelinaad fiiri 615 37 kadib waxaa leedahay send. wax yaraad sugaysaa kadib numberkayga waa kaasa fiiri numberkayga xagga sare uu ku qoran yahay BUK 1 234 aa ku qoran BUK amnido BUK 1 234 BUK 1 kala mujida 5593 ewer 57 waa 8 number la rabo ina meeshaad gelisid intaadan 234 aadan gelinin BUK ga oo kaaga xirmay sim kaarka waxaad gelinaysaa BUK ga oo 8 god mujida 8 number oo usoo horeyso aad gelinaysaa. Markaad gelisid kadib haddana 2 ga mujida 8 number kale waad gelinaysaa kadib haddana 234 aad gelinaysaa kadib BUK ga wuu ka furmayaa taleefankaaga caadi wuu ku noqonayaa. Marka intaadan shirkadda aadan u cararin taleefankaaga sim kaarkaaga adiga xalisan karo sidan ku xaliso. walaal waad mahadsantihiin. maalin walba diyaar waxaan u ahay inaan mowduucyadan oo kale aan soo bandhigo YouTube-ka. idigana hadduu Ilaahay kala noqdo waxaan rajaynayaa dadkii oo anfaco Ilaahayna aniga dhigo anigana ii soo duceeyo hadduu Ilaahay kala noqdo. ilaan ducadu waa u baahannahay mugtahay. haddana mahadsantihiin. jazakallahu khayran khayral jazaa. السلام عليكم.